isxilqaan horta dee qof kastoo damiir la horta inuu isxilqaamo waa ku qasbaya marka weligeyba waan isxilqaami jiray oo haddii alla ku roon haddii allah u naxariistay aniga iyo abshir nuur faarax baxal waxaan ka shaqayn jirnay samafalka iyo haddii alla ku roon bulshada tabarta yar inaan u gargaarno laakiin kelmaddan haddii alla ku roon yahay xarumaha badan lagu dhisay tiyaatarka horta madaxweyne farmaajo ay iga codsaday inaan maareeyo ka noqdo kadibna waxaa ii cuntumi weysay aniga meel qaawan oo burbursan oo baaba'san inaan haddii alla ku roon yahay iska dhex joog waan ku laabtay madaxweynuhu waxaan yidhi madaxweyne waa dhisi kartaa tiyaatar sideen u dhisaynaa uu yidhi waxaan yidhi bulshada Soomaaliyeed maanta haddii loo bandhigo oo la iskaashado dalka dhammaan la dhisi karaa madaxweynuhu wuxuu yidhi markaa ma iskaa wax u qabsan ku dhisayna iskaa wax u qabsanaa waxaa isticmaali jirtay dowladdii maxamed siyaad marka waxaan idhi iskaa wax u qabsan ku dhisaynaa laakiin magacaas ma isticmaalayno iskaa wax u qabsan la yidhi maxaan isticmaalnaa uu yidhi waxaan qabaanhaa yidhi isxilqaan inaan isticmaalo isxilqaan inaan isticmaalo oo haddii alla ku roon yahay isxilqaan aan ku dhiso markaasna weliba aan saas leeyahay tiyaatarka hortiisa waxaan kusoo dhejiyay boor la yidhaahdo isxilqaan ku dhiso dalka waa ila qaatay madaxweynuhu haddii alla ku roon yahay waa garaystay sidaasaa loogu gudbiyey golaha wasiirada markii hore qorshe wuxuu ahaa tiyaatarka in lagu dhiso kadib markii dhismihii tiyaatarka la bilaabay oo la arkay bulshadii oo dhammo inay diyaar u tahay oo weliba ganacsatadii haddii alla ku roon yahay ay u heelan yihiin hadda waxaa ku baxay dawladdu waxay bixinaysay haddii alla ku roon yahay johraantiga hadday shamiito tahay iyo haddii qalab dhismo tahay iyo hadday rinji tahay iyo kulli ganacsatada keenta marka markii la arkay in bulshadu ay u heelan tahay ayaa xarumaha kale lagu daray oo ay golaha wasiiradu ay ansixiyeen in meelo badan lagu dhiso isxilqaanka marka isxilqaanku sidaasuu ku bilowday haddii alla ku roon yahay weliba tiyaatarka oo cabanaya gabay ahaan tiriyey gabaygii markii uu bulshada gaareen qof walba haddii alla ku roon yahay way aqbaleen dadkii inay wax bixiyaan marka sidaas oo ahay fakarka isxilqaan hal abuurkiisu aniga uga yimid inkastoo aan arkay haddii alla ku roon yahay taageerayaasha madaxweynuhu yidhaahda madaxweynuhu isxilqaan markii uu alifay wax badanha lagu dhisay taageerayaashu ay dhahay laakiin inkastoo markaas xukuumaddiisii aan ka mid ahay dee hadal igama furayn iyo inaan ka jawaabo min waa tahay aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waxaana xusid mudan in goobo badan oo hanti dadweyne ah lagu dayactiray lagu dhisay iminkana ay ku sii socdaan in meelo kale lagu dhiso fikirkaasi waxaan aad ugu faraxsanahay beriga tiyaatarka aan dhisay dad badan ay ugu cambaareeyo abwaanguurow tiyaatarka waa goomukar waa sidaas maxaad haddii alla ku roon xooga u gelinaysa laakiin anigu fikirka ma qabin oo dee tiyaatarka waxa waaye waa xarun horta waa dhismahan had walba wixii aad ka dhigato dhismaha had walba guriga wixii aad adigu ka dhigato ma aaminsaneen anigu fan qaawan in lagu soo bandhigo laakiin ummadda fankeedu wuxuu ka mid yahay anshax marka fanka asluubta leh oo edabta leh oo anshaxa leh wuxuu ka mid yahay ummadda taariikhdeeda iyo dhaqankeeda iyo asalkeeda midda labaad tiyaatarka hawsha uu qaban jiray fan keliya ma ahay ardadii dugsiyada sare iyo barnaamijkii kadiisa lagu soo bandhigayo waad ogtay lagu soo bandhigi jiray marka dadka waxaan ka dhaalici waayay war tiyaatarkan fan keliya kama shaqeeyo midda kale maanta anagu uma baahnin haddii alla ku roon fanka youtube-ka ku jiro haddii alla ku roon gabar kasta intay isqaawiso iyo wiil kastaahu nooc kale intay iska dhige marka kaasna ma aha waxaan ka shaqaynay maanta ilaahay maadis ilaahay wuxuu qadaray maalin kasta jaamacad iyo iskuul iyo lagu soo bandhigaa maanta haddii alla ku roon ayaa lagu qabtaa marka ilaa hadda haddii alla ku roon hal xaflad oo fanahoo lagu qabto ma jirto marka ummaddu ma fahamsana gurigan adiga iskale sidaa doontaana ka dhiga kartaa anshaxu hadduu kaa qaldan yahan adigaa toosisa kara laakiin haddaad tiraa meel kastoo aad maalin anshaxumo ku aragtay hala baabi'iyo waxay ka mid tahay dhaqamada shabaab aad iyo aad ugu dambeyntii abwaan guure barnaamijka gabagabadiisa ayaan isla soo gaarnay guure magaca guure ma naanays adigu lagu bixiyaa mase waa magac waalid ka yimid walaalow guure naanays ma ahan
جورة ووجي مجاعيجنا وحوايا عثمان عبد الله جورة فيدو مركا لكن وحنا نيس أبوان يا أبوان أنا نيس وهذا أنا وهذا ومقال مركي أبوان أرجع أبوان أصل كيس اللي يراد أبكي وأنا ذو مركا وحنا سلايا ومقال أنت تكاس مركا أبوان أنا قال عيني نانيس لكن جورة ومجاعي ووجي مركا ده سومالي دونا مقعد دير لقن كأي قادتها سيدا سا عثمان يا عبد الله بلقوي اللوب ها آديات مركا جورة ومقعي ووجي لكن أبوانا نانيس